السلام عليكم أصحابي سو دواذا دقنينها مركنا وعينا بلاونا هدان Soomaalina maxaan ka digaynaa wax kasta oo bulshadeena qatar ku noqon kara maxaa kamida walaalkeen sida u jeedin Dr. Harun wuxuu nooga digayaa dawo qatar ah isla markaana gabdhaha Soomaalida imanka dhawaanahan ay aad u marsadaan ayagoo qurux ka raadinaya sida uu sheegay laakiin qurux ma noqonayso waxa ka daran qatarta iyo dhibaatada ay noo keeni karto gabdhuhu sida ogtihiin waa warshadaas wax soo saarta wax soo saarkaada wixii ku ciyaaraya waa inaad iska ilaaliso dhakhtarka aan wada dhageysano waxaan bal maanta idin soo gudbinayaa digniin ku saabsan dawada halkan aad ka aragtaan sawirkeeda oo la yiraahdo isotretinoin dhibaato fara badan bay bulshadana ku haysaa bal xogaa baan ka baraarujinayaa waxa jira imka bulshadeena aad ugu soo badanaya raadinta quruxda wax la yiraahdo qofkiinu qurux raadiyo meel kasta ay ka gashan inuu ka raadiyo taasina laga yaabo inay jar ka tuurto qofka marka awalkii hore dumarka is qurxin jiray oo ma garanaysaa wax isma marin jiray hadda ragga laftoodii ayaa arrimahan ka bilaabay marka waxa soo baxay wax la yiraahdo skin care routine wax la yiraahdo skin care routine ku waxa weeyaan qofku nadaafadiisa ka shaqeyn kara waxa nafaqeynaya jirkiisa dawo marsan kara laakiin qofku inuu aragtidiisa bedelo sidoo uu yahay bedelo maqaarka kalarkiisa bedelo waa dhibaatooyinka maanta aad bulshadeena haysta kamid tahay marka dawadana mid kamid ah way dhibaatooyinkaas dawadan hadaan idin qeexo waa dawo loo isticmaalo xanuun maqaarka ku dhaca waliba xaalad la yiraahdo acne oo wajiga iyo chestka iyo dhabarka iyo meelaha ku dhacda waxayna findo ku naqaan way oo finanka ka soo baxay qofka wajigiisa noocyada kala duwan marka qaarkood intuu baabao midowga kaaga tagay ayaa loo isticmaalaa marka xaaladda acne la yiraahdo dawooyin kala duwan oo qofka lagu bilaabaa jira oo marka hore lagu eega bal wax ka tari karaan marka dawadan waxa loo isticmaalaa marka dawooyinka kala shaqeyn waayaan ayaa loo isticmaalaa optionka ugu dambeeya way ama last resort qofka markay dawooyinka kala xabo tiri waayaan sababta looga dhigay last resortna waxa weey ama optionka ugu dambeeya qofka la siinayo dhibaatooyinkeeda aad iyo aad u fara badan haddaba qofka xaaladaasi ay hayso acne la yiraahdo ayaaba laga taxadiraa dawada in loo qoro bal maxaad u malayn qof aan u baahnayn oo dawada iska isticmaalay si uu ugu qurxiyo waxa dhacday intuu qof ma garanaysaa helo farmasi ka soo qaato isticmaalo uu qof kale hadana uu si gudbiyo yiraahdo dawadan aan ma garanaysaa ku fiicnaado maqaarkayga uu smooth ku noqday adiguna isku day qofkaasina qof kale oo si dibadda sida ay dhibaato fara badan ku timaado marka dhibaatooyinkan bal maanta idin tilmaamaya dawadan horta prescription lama bixiyaba oo dhakhtar soo qorin lama helo laakiin waxa laga yaabaa meelaha qaarkiin aad joogtaan ee bila shuruucda in farmasiyadu ay qofka markaa ka iibin karaan iyadoo markaa kiniinaha jirta oo afka laga qaato iyo iyadoo la ismarinayo oo jel ah sida marka kanad ka arkaysan sawirka oo kale dhibaatooyinkooda waxaa kamid ah kow maqaarkaaga inay ka dhigto mid jilicsan oo u nugul inay dhibaatooyin kale soo gaaraan sida infectionka iyo in qorraxda ay ku dhacdo hatta waxay keeni kartaa marka qaarkood cancer inuu maqaarkaaga ku dhaco waxay saameyn ku yeelan kartaa dumarka ku jira waqtiga reproductive age ka la yiraahdo ay garanaysaa xilliga dhalmada ay ku jiraan marka dhalmada bilowday ilaa dhalmada deynayso dumarkaas waxay saameyn kaga yeelan kartaa haday uur qaado ilmaha soo ridi kartaa haday uur qaado iyo dawada qaadanaysa ama dawada ay bilowday iyadoo uur leh ilmaha aloosha ku jira waxay ku sameynaysaa dhibaato aad u fara badan oo wax weyn ma soo dhalanaya isagoo wax ka maqan yihiin jirkiisa ama wadnaha wax ka maqan yihiin ama kaliisa wax ka maqan yihiin maskaxdiisa wax ka maqan yihiin indhiisa wax ka maqan yihiin yani ilmo abnormality leh ayaa u dhalanaya qofkaas marka aad baa looga taxadiraa qofka hataa loo qoriyo waa laga jeegaray inuu uur leeyahay waxaa la siiyaa dawooyinka uurka ka hortagaya contraceptive ka la yiraahdo inta qofkaas dawada u qaadanayo si aanay isugu soo hagaagin marnaba ilma calool galaya iyo dawadan oo la qaadanayo dawadan dhibaatooyinka kaysan karto waxa kamid ah inay damage ku samayso keliyahaaga iyo beerkaaga waa sababta qofka marka dawadan loo qorayo marka hore beerkiisa iyo kaliisa loo cabiro markuu dawada bilaabana labadii weekba ama afartii weekba mar la yiraahdo soo noqo dhiigiisa la eego si kaliisa u shaqeynayaan ama beerkiisa u shaqeynayaan hadii marka wax isbedel lagu arko dawada laga joojiyo waxyaabaha dawadan keeni karta ee aad ku cajiibka waxa kamid ah inay maskaxdaada saameyn ku yeelato iyo dhimirkaaga oo ay kugu rido wax la yiraahdo depression iyo iktiyaab ay kugu rido heer qofku u gaaro inuu naftiisa dhaafiyo wax la yiraahdo suicide
inuu qofku geli karo dawada markuu qaato dawada khatarahaasay leedahay marka qofku waa lagala taliyaa waxa la yidhahdaa haddaad arrimahaas ku aragto degdeg usoo noqo marka wax ka qabanay dawadin waxyaabaha kale keento waxaa ka mid ah inay ku qallajiso afka iyo indhaha oo ilmadu kaa yaraato oo candhufta kaa yaraato taas waxay keeni kartaa qofka inuu indhahu ay damage ku dhaco oo qaybtan sare laga arkaya ay wax noqoto oo qofku hataa saa ku indhabeelo bal adigu imagine qofka dawada loo qoray arrimaha looga digaya qofka aan ogeyn in farmasi intuu kasoo qaatay iska isticmaalay ka hor dhibaatiin teleg ay markaa ayaa ku dhici karta يعني واحد لسه كوبي كرمها أريمها كيني كرتوحة كميدا إن مرغية يساعده وحكوا نقدان أو قف كدولان قادنا وحلو جد هذا هاي سماين إكسسايز بعلوسها سماين وحيبقى بعلوسها سكوقادين كوز دبعتها كسوقاري كرتها مرغية يساعده هذا بدد دوادن وروح كرهادين يا بالكور هذا مركزو قف كولي بنتو استعماله وقف كلا أو هالكيسة مع أصحابتي سا وسيقود بني أوليه دوادن استعمالي وجهي وسموث أي كدكتة هذا يكون هو قاعد استعمال مركب حنا ديك الدقيقة دبعتين كانوا عن ديك الدقيقة أنا وحكي قبل كروين إن ديك الدقيقة لكن حقوق هذا تان وإسكت ديسان دوامين ذيك يدين تلا مركب قف ولا بإركاء وجدك أصحاب هذا وجدك قف قصد جران سو وجدك أبلا صومالي وجدك رجع إسبلابين إسقورحياني يقول لفتو ديس عديان يقول لفتو وجدك مركب تزكزوكو بينا والسلام عليكم ورحمة الله